سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا صلوات ربي والسلام على ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan ku mahadinaynaa Allah rabbul caalamiin naga dhigay muslimiin tawxiidka hadiyad noo sii bifadli wa birahmati alxamdulillah. intaas kadib waxaan u mahad celinaynaa gogoshan qiimiga badan oo sharafka badan oo midnimada iyo dawladnimada iyo sharafka ka muuqdo oo curadkii aabbahay uu dhigay mudulada dilira waa curadkii aabbahay aniga marka gogoshaasna waa ka mahad celinaynaa. sidii saaxiibkay waas maxamuud cali u sheegayna gogoshu waa gogol Soomaaliyeed, waa gogol lagu soo dhaweynayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo wafdigiisa iyo dhammaan golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka magaca Soomaaliyeed iyo magaca ma garanaysaa midnimada ummadda waa ra'iisul wasaare ku soo dhawaaw. runtii ra'iisul wasaaraha waxaan si gaar ah ugu amaanayaa waa nin magaaladan Muqdisho in badan oo kamid ah joogi jiray haddeerna markuu meesha soo galay waa nabadoonnada kamid ah waa u jeedaan ciidamadiisa iyo shaarkiisa u dhir badan asaga iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka gaashaandhigoo maanta waxay matalayaan dhaqanka Soomaaliyeed ma ahan wasiirada kale iyo gudoomiyaha gobolka inay ayagoo dhaqanka maarta ay ka baxsan yihiin. ra'iisul wasaare hambalyan kulena waa ku soo dhaweynaynaa. isla sidaas gudoomiyaha gobolka waa soo dhaweynaynaa saaxiibkeen Cumar oo magaalada Muqdisho muddo oday ka ahaa haddana oday ka gogoshan karaamada badanna isaga ay u taala sidii la sheegay adigana middoon gudoomiye waa ku soo dhaweynaynaa. sababtoo macnaheedu waxay tahay gogosha ragga dhigay iyo meesha la dhigay iyo danta laga leeyahay ayaa aduguna duq ka sii tahay aagan iyo deegaankan iyaga magaalada Muqdisho. waxaan warkayga ku soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ummadda Soomaaliyeed baahi bay qabtaa dawladnimo qarannimo midnimo abni sharaf ayaan u baahannahay. madax badan ayaa dalka soo martay baahi badan baan haysa qaasatan magaalada Muqdisho haysa ummadda Soomaaliyeed oo dhan haysa. ra'iisul wasaare adiga iyo xukuumaddaadu waxaan idinka rajaynaynaa ilaahay idinkii inaad noqotaan ummadda Soomaaliyeed baahida dadkii ka qaadi lahaa inaad sabab noqotaan ilaahay idinka rajaynaynaa. ilaahayna waxaan idinkaga baryaynaa dadka carabuhu waa naga fiican yihiin oo madaxdooda waa u duceeyaan ummadda meeshaan joogta oo muslimiinta oo walaalahaya waxaan si gaar ah uga codsanayaa ha loo duceeyo xukuumadda ha loo duceeyo madaxweynaha ha loo duceeyo madaxda dalka. Soomaalidu si habaar u waday habaarkii waxaad muddaa inuu nagu wada dhacay. carabuhu waa aragteen xarameynka marka la fadhiyo boqorka iyo kaaliyaashiisa iyo dalka iyo guud ahaan ummadoo dhan waa loo duceynayaa. innaguna aanu duceyno. waxaan rabaa inaan si gaar ah hambalyo ugu diro culimada Soomaaliyeed oo Dr. Maxamed Xaaji afkooda uu ku hadlay oo Sheekh Bashiir Axmed Salaam meesha aan ugu jeediyo oo hay'adda culimada Soomaaliyeed oo qarannimada garab taaganna waxaan rabaa inaan u hambalyo iraada hambalyo culimadu saacaday dawladnimada ku soo dhawaataba dad waxa qaba in dhibaato imaanaysa laakiin ummaddu way si hagaagaysaa. marka hay'adda culimadana waxaan leeyahay xafiisyada dawladda ku sii dhawaada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar sidii dalkan aad u horgelin lahaydeen ayaad ku hawlantiina ku sii socda. ugu dambeyntii beesha mudulo tartan ay furtay gogol ay dhigtay macnaheedu ay taa Soomaaliyey dawladda hala jeclaado hana la soo dhaweeyo maanta ayaga furay maalmo kana insha Allah taala hadii la yiraahdo hadda waxay ila tahay tartana jira marka tartanku waa furan yahay. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.